Daba su'aasha muhiimka ah ayaa ah ma jiraan Soomaali albiina ah? Haa, dabcan way jiraan, balse aynu eegno waxyaabaha ay kala kulmaan bulshada ay ku dhex nool yihiin ee Soomaaliyeed. Marka waxay la wadaagi doonaa video mid ka mid ah dadkaas oo Soomaaliya gudaheeda ku nool oo runtii la kulmay tacadiyo ama dhibaatooyin iyagoo dadku ka aaminsan yihiin waxyaabo kale. Marka videogaas aynu wada eegi doonaa daawasho wanaagsan. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Dhammaan asxaabta ku xidhan Saki Lucky Channel aad baan ugu faraxsanahay inaan mar dambe hawadiisa ku soo noqono. Asxaabi haddii aad channelkan ku cusubtiin waxaan idinkula wadaagaa waxyaabaha social media ku cusub ama waxyaabaha lagu soo kordhiyo. balse asxaabi maanta waxaa idinla wadaagi doonaa mowduuc ka duwan oo aan u arko runtii in ay muhiim tahay in qof waliba wax ka ogaado haddii aanu ka ogeyn. asxaabi markaa mowduuca aynu maanta ka hadlaynaa waxa weeye dadyo ku nool adduunka oo muuqaal ahaan ka duwan dadka caadiga ah. markaan ku leeyahay muuqaal ahaan waxay ka duwan yihiin dadka caadiga ma aha dad bahalaw eeg, balse waa dad diirka sare ee jirkoodu uu ka duwan yahay ka dadka caadiga ah. sidoo kale indhahoodu ay ka duwan yihiin, mararka qaar sidoo kale ay dhacdo inay timahoodu ka duwanaadaan. marka magacooda waxaa la yiraahdaa albinism. muuqaal ahaan waxay ka duwan yihiin dadka caadiga ah. sidaad u jeedaan sawiradan waxaa idinka muuqda dadka loo yaqaano albino, waxaana ka muuqda calaamadihii aan idiin soo sheegay ee ahaa in maqaarkoodu aada uga cad yahay dadka caadiga ah. xataa haddii la barbar dhigo dadka caddaanka ah aada bay uga sii cad yihiin iyagu. sidoo kale waxaad u jeedaan in timahoodu badi ay ka duwan yihiin dadka oo ay u muuqdaan cawlanaan ama caddaan saa'id ah. dhanka indhaha marka la eego badi waxay leeyihiin indho aada u qurux badan oo mararka qaar lagaga sooco dadka. qaar ka mid a indhahoodu waxay leeyihiin laba midab oo kala duwan, taasoo ku tusaysa awoodda Ilaahay iyo abuurtiisa kala duwan ee cajiibka ah. markii ugu horreysay aan anigu shakhsiyan maqlo waxaan moodayay dad meel gaara ku nool, balse markii dambe aan xogtooda baadhay waxaan ogaaday inay cid kasta ama dadyowga adduunka ku nool cid aan lahayn aanay jirin, oo cid waliba macnihii ay yeelan karto dadka noocaasa. haddaba maxaa sababay inay dadkani ka duwanaadaan dadka ama muuqaalkooda ugu ekaado muuqaal ka duwan dadka caadiga? waxaa jirta maado jirka ka mid ah taasoo samaysa kalarka haragga sare ee bini'aadanka, sidoo kale ka indhaha iyo ka timaha. markaa waxaa jirta inay dadkan ku yar tahay maadadaasi oo ay sababtay inay haragga sare ee jirkooda uu aada u caddaado, sidoo kale timahooda uu ka duwanaado timaha dadka caadiga ah. taasoo macnaheedu tahay xataa adigaagan daawanaya muuqaalkan in ilmahaagu noqon karo albino. waa haddii maadadaasi ay soo saari weydo xaddigii uu u baahnaa ilmahaagu inuu helo si uu kuu shabaho adiga. haddaba albiinuhu kuma koobna keliya dadka ee sidoo kale xayawaanka laftiisu uu leeyahay, sida idinka muuqata sawiradan oo kale. waxaad u jeedaan noocyada kala duwan ee xayawaanka kuwaasoo ah albino ama ku dhashay sidan ka duwan xayawaanka kale. ridan aad u jeedaan waa ri albiina ah, balse imika haddii la weydiiyo ayeeyo Soomaaliyeed waxaa macquula inay kuugu jawaabto waa carabiyo ama waa ridii carabiyo, taasoo ku tusaysa sababta loogu bixiyey carabiyo inaanay ahayn wax kale balse ay tahay inay ka caddahay riyaha kale. haddaba su-aasha muhiimka ah ayaa ah ma jiraan Soomaali albiina ah? haa, dabcan way jiraan, balse aynu eegno waxyaabaha ay kala kulmaan bulshada ay ku dhex nool yihiin ee Soomaaliyeed. marka waxay la wadaagi doonaa video mid ka mid ah dadkaas oo Soomaaliya gudaheeda ku nool oo runtii la kulmay tacadiyo ama dhibaatooyin iyagoo dadku ka aaminsan yihiin waxyaabo kale. marka videogaas aynu wada eegi doonaa daawasho wanaagsan. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan la joogaa walaalkeen Guduudow oo ah muwaadin Soomaali isla markaasna waxa weeye nin dhalinyaro ah. Guduudow iga waran walaal, xalay waxa lagu yiri ciyaal baa ku bacbacsaday oo dhagax kula dhacay, maxaa sababay in ciyaal ku dhagxiyaan? walaalo waxaa sababay in maxay aheeday carruurtaasi ay dhagaxayaan ay baabacsan dusheena bara fara badan oo xoog badan ay u geystaan. waxaa sababay ay igu eedeeyeen inay yiraahdaan carruurtaad farcad cuntaa oo maxay lix carruur baad cuntay oo maxay aheeday lagu haystaa iyo waxyaabo lamid iyo aflagaadooyin fara badan ayay ii geysteen iyo xalay iyo fowdo halkaasi ka dhacday oo ay tahay mid aan maleynaa in la soo abaabulo laga dambeeyay ay tahay. asxaabi saad u jeedaan ninkan wuxuu ka cabanayaa carruur yaryar oo shiiday oo aaminsan inuu bahal yahay ama juudaan yahay ama uu cuno dadka. runtii waa wax qof kastaaba uu dareemi karo dhibaatada ay leedahay. marka adigoo qof caadiya oo bini'aadan oo Ilaahay si gaara kuu abuuray ay maxay hayday bulshadii aad ku dhex noolayd ee aad ka soo jeeday ay sidaa kuu galayso, runtii waa wax aad iyo aad looga danqado.
marka aynu sii wadno tahay marka ciyaalka yararka markay ku arkaanba saasay kuu bacsadaan saas i bacsadaan xaafadaha markaa maraysa waa ku dhagxiyaan xaafadaha markaa mara waa lee dhagxeeya waa lee foodeeya dhibaatooyin fara badan baa kaa kulma hase yeeshee waxaan iska yidhahdaa waa iska caruura kuleeba dhib ma lehe isaga sabir iskaga sabira idhaahdaa waa ilmo yar haddaa habaartidna waxa waaye haddii dhagax intay kugu dhufta habaartidna waxa laga yaaba wax gaaraan waa gaaraan waa caruurtaadoo kale kule waad dhali doontaa ayaa is leeyahay bal sabar ilaahay mataqaana maxaa farajka bixinayo waa sax weeye caruur yarna wey ilmuhuna waa iska qaldamaan horta arrintaas dhib male ilaahay subxaana watacaala ajri xasanaad kuu siinaya haddaa ku saburtid teeda kale iga horre shaqooyinka markaad raadinaysid oo kale iyo maxaa kala kulantaa dadka aad shaqada ka rabto inaad la shaqaysid dadka horto dadku aad iyo aadaan aniga aan maxay aheeday aan horta xagga shaqooyinka mataqaana haddii loo raajada dhibaatooyin fara badan ugu qabaa waa garta dadka waxay aaminsan yihiin boqolkiiba 70 boqolkiiba 80 meelahan inaan aniga aan qabo baras ama juudaan ah ama dadka aan cuno ama xasaas ah ama cudur la kala qaado aan qabo oo la isku daarto ayay aaminsan yihiin marka iraahdo walaalo saas maaha jirkan waa jirka waa dhashay oo caafimaad qaba oo boqolkiiba boqol wey waa huba oo haddaad doontay xataa dhaqaatiirta ugu sarreysay nebiye haddaa iraahda ma hanuu soo dhibaan lagaa balay racdeena markaa sida idiin muuqato wuxuu sharaxayaa waxyaabaha ay dadku ka aaminsan yihiin dadyaga qaar waxay ka aaminsan yihiin inuu baras qabo oo marka saa u eegto muuqaal ahaan waxaa ku yaala dhibco madmadow oo aada moodaysay inuu jidhkan hore u lahaa oo deedna uu jidhkiisu isbedelay laakiin dhibaatada jirtaa waxay tahay dadkan cadceeddu aad bay u dhibtaa marka cadceeddu haddii ay dhibto waxaa laga yaabaa in jidhkooda ku samaysan nabarro badan oo saas oo kale shaqadiba waa laga diidayaa soomaaliduna waa dad mudmadow oo qof cad hadday arkaan waa besba wayba la yaaban yihiinba marka anigana waxbaa sidaasan iskaga dawarsana ilaa ilaahay faraj iiga fura hadda aleedni yani hadda waxaa u dawarsanaysaa waa dadkii shaqadii kuu diiday shaqadii ii diiday oo midabkaaga kuugu diiday kii igu faquuqay oo macnaa dee nin iska faquuqan oo dhibaatooyin fara badan caruurtii iyo dad waaweyn qaarkood xataa ku qaba aada arkayso dee xagguu wax ka keena waxaan cuno nolol maalmeedkiisa u baahan iyo waxaan cuno waa sax marka waa wixii ku noolaan lahaa ee dadkaasi iska dabarsa walaali u siiya markaasa maalinka adiga sidaasaan ku noola marka maalina waa heshaa maalina waa weydaa sida idiin muuqato qofkani waa qof soomaaliya gudaheeda ku dhex nool dhibaato haysata awgeed mar laxaad la-a xanuun kale ma hayo sida keliya dhibaatadaasunbaa haysata dhibaatada ilaahay uu abuuray baa haysata balse bulshada uu ku dhex nool yahay awgeed ma shaqaysan karo shaqo lama siin karo waa la faquuqayaa dhibaato badan buu kala kulmayaa markaa imika wuxuu sheegayaa inuu dawarsado wax kalena kumay kalifine waxa ku kalifay dadyowga uu la nool yahay baa ku kalifay runtii wax aada looga damqado qof bini aadan oo ilaahay si uu abuuray oo bulshadu saa ula dhaqmayso markaa sida idiin muuqata bulshadu waxyaabo kale ka aaminsan tahay anuu runtii wax aqoona umaan lahayn markii ugu horreysay waxaan moodayay inaanay dadkani soomaaliya gudaheeda ku noolayn balse markii aan baadhay waan ogaaday dhibaatooyinka ay la kulmaanna waan arkay asxaabay fideogan waxaynu odhan karnaa waxaa loo sameeyey 2 sababood oo keliya ta koowaad in dadka laga wacyigeliyo dadyowgan inaanay ahayn dad ka duwan dadka kale balse sida curyaanku ama qofka gacantala ama lugtala ama ishala uu ugu dhasho ay ugu dhalan karaan sidan oo kale dadkani inay maadadaasi ka maqnaato iyo in la caawiyo markaa dadkeena Soomaalidu waxaynu odhan karnaa aqoon la'aan baa u geysanaysa sida haddii wacyigelin badan loo sameeyo ama ay ogaadaan ama ay warbixintan helaan waxa laga yaabaa inay ka waantoobaan oo ay mushkiladaha aanay mar dambe geysan markaa fideogan waxaa la sameeyey 2017kii waa xilli hore balse haddii aad aragto dadyow ku nool Soomaaliya gudaheeda oo dhibaatada la nool waxaan rajaynayaa inaanad adiguna sidaa u faquuqin aanad caawin doonto asxaabay fideogii maanta intaas inoogu eegyahay waxaan rajaynayaa inaad ka hesheen haddii aad ka cusub tahay channelkan subscribe gare sidoo kale la sii wadaaga asxaabtaada aad iyo aad baad u mahadsantihiin intaynu fideoga xiga ku kulmayno waxaan kaga tegayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu